الرحمن الرحيم. marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan saxaafadda Puntland meel kasta ay joogto iyo dadweynaha reer Puntland dhammaantiis. waxaan leeyahay Ramadaan Kariim. waxaan rabaa warbixinta aan kooban waxaan rabaa halkan inaan ka bixiyo shaqaaqa xalay ka dhacday tuulada Afur ee Soona Galgala oo nimankii sharwadayaasha ay soo weerareen oo halka ay yimaadeen. halkaas ciidamada dawladdu ay ku jabiyeen sharwadayaasha baraha wararkana ay hadda dhigeen. waxaan u leeyahay ciidan intaa leeyo baata intaa leeg baan geysanay. waxa ay sheegayaan wax ka jira ma jiraan. dadka ay laayeen ama ay dhaawaceen waxay u badan yihiin dad shacaba, odayaal, haween, caruur bay u badan yihiin oo hadda dhaawacoodii la hayo oo isbitaalada la keenay. ciidamada dawladdu way iska difaaceen nimanka sharwadayaasha oo bisha Ramadaan oo barakeysan dadku cibaadaysanaya dhiigga muslimiinta raba inay ku cibaadaystaan raba oo gaalada ah. waxa way ciidanka dawladda Puntland weligiisa way iska difaaci jiray, haddana way iska difaacay firxadkoodii wixii laga laayay ma wixii kale ciidamada dawladda haddana ay ku daba jiraan. waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay ka dhigo si maaragtay dhaqsaa in loo soo afjari doono bisha Ramadaan. waxaan kaloo u sheegaynaa dhammaan ciidamada Puntland meel kastoo joogaan inay u diyaari garoobaan nimankaa sharwadayaasha oo gaadiidka soo raacaya oo xuduudaha iyo maxaan kuu sheegaa meel kasta maaragtay kasoo galaya xadadka Puntland. qodob kale waxaan rabaa inaan ku darsado oo amniga guud ee Puntland aan ku darsado iyadana dadweynaha reer Puntland waxaan leenahay nimankaa sharwadayaasha ay mar walba waxay dhibaateynayaan maaha ciidanka dawladda manaha madaxda dawladda waxay dhibaateynayaan maatada dadweynaha reer Puntland. kuwa qaraxyo lagu qabtay hadda kahor waxay yidhaahdeen xagee qaraxa u wadaan baa qarax waxay yidhahdeen meesha dadku ugu badan yahay ama suuq ha ahaato ama cusbitaal ha ahaato ama hotel ha ahaato ama iskuul ha ahaato mar walba meesha dhiigga dadka muslimiinta ugu badan yahay ayaanu inaan dhiig keeno ama aanu leyn aan rabnaa. waa laga hayaa kuwaan hadda qabanay oo lagu guulaystay ciidamada ku guulaysteen. weligood sharwadayaashu wayna soo weerari jireen, wayna soo aadi jireen, wayna nagu khasaari jireen. haddana waxaan rajaynaynaa firxadka ka hadhay inta ka hadhay wixii la laayay baa inta ka hadhay inaan dib usoo qaban doono ayaan rajaynaa soo afjari doona haddii Ilaahay ka dhigo. bal waxaad noo sharaxdaa sida waxay u dhaceen dagaalku siduu ku bilowday. dagaalku siduu ku bilowday dee waan idiin sheegay. waxaan ku yidhi nimankaa sharwadayaasha ummadda bil Ramadaan ku jiro difaaca ku jira ayay soo weerareen. dagaalkana waxay ka bilaabeen tuuladii magaalada ahayd ciidamadu ay deganaan bay dagaalka ka bilaabeen. waxay laayeen waxaa ugu horreeyay odayaashii iyo dadkii maatada baa ugu horreeyay. ciidamada iyagana way isdagaaleen kabacdi meesha ciidamada soo gaareen ciidamada way iska difaaceen. meel dagaal ka dhaco mar walba waxa way ka dhacaya laakiin khasaaradooda aad iyo aad ayay u badan tahay. firxadkoodana waa la keenay. mudane wasiir baraha al-shabaab waxay ku qoreen inay dileen 61 askariga Puntland ka tirsan. sidoo kale wararka deegaanka laga helayna waxay sheegayaan dad shacab inay laayeen. marka khasaarada dhabta ee halka ka dhacday ka dawlad ahaan maxaa ka sheegi kartaan? sharwadayaashu mar walba waxay sheegtaan dad Soomaali oo Islaam oo badan ay laayeen bay mar walba sheegtaan. waana la socotaanay marka anagu qof sheeganaya qof muslim dhiiggiisii baan badiyay ama qof muslima baan dilay oo maato u badan isaga u taala laakiin waxa sheegaya wax ka jira ma jiraan. weligood bay sheegi jiraan intaas waana meelayaal weyn oo kaas. mudane wasiir arrintan intii waqti badan ay soo noqotay inta badanna kooxaha al-shabaab waxay geystaan weeraraha. marka wasaarad ahaan arrintaas qorsheyn kale yaa laga jira. adeer waa ogtahay shabaab weligood waa Puntland dhibaatay ugu soo diyaar garoobaan laakiin waxaad ogaan kartaan ama mar walba la socotaan mar walba in laga adkaado oo la jebiyo oo waxay la yimaadaan lagala hado meydkooduna maaragtay darbiyada warnaado ayaa mar walba dhacda. marka weligoodna nagama faa'iidin haddana nagama faa'iidin maayaan sababtaan waxaana dad muslimiina oo sooman oo difaac dalkooda uga jira cid kastoona soo weerarana waxay naga faa'iidaysa ma jiro. wasaaraha dawladda wasiir ay gaarsiisay ururka shabaab ee weerarka soo qaaday gaalmada waa intee leeyihiin? weli hadda halkan kama sheegi karo laakiin dib baan kasoo cadayn doonaa khasaarada la gaarsiiyey laakiin way badan tahay khasaarada khasaarada u badan tahay. wasiir ma jirtaa in al-shabaab ay gacanta ku dhigeen tuulada Afur kama jiraan wax ka jira ma jira ciidamada dawladda joogta meesha wax ka jira howlgal baa jira dawladdu ay ku baxsanayso qoyihii Afur soo galay oo dib uga baxay waxaana jiray in ay sheegteen in ay gaadiid badan gubeen. arrintaasi maxaad nagala wadaagaysaa? way iska hadlayaan waxa iska hadlayaan qoftooda wuxuu doono ku hadlaa oo tabar lahayn. marka dawladdu way ka tabar weyntahay intaas iyo ciidamada Puntland. howlgalka dambe maxaad wasiir nooga sheegay? arrinta halkan kama sheegaya waxa weeye howlgalka waa arrin dawladeed weeye iyada go'aamadeeda loo gaaraysa arrintaas.